ciidamada dalka Suudaan ayaa la wareegay gebi ahaanba deegaanada xuduudda labada dal ku yaala ee horey loogu maransanaa deegaanadaasi oo lagu magacaabo Al-Fashaqa, kuwaasi oo beeraley Itoobiyaan ah ay xoog ku deganayeen muddo dheer. Ciidamada dalka Suudaan iyo maleeshiyaadka kaabaya ayaa la sheegay inay shalay galinkii dambe la wareegeen deegaanka Al-Farisha, waxayna wacad ku mareen inay si buuxda ula wareegayaan gebi ahaanba deegaanada ay Amxaaradu kaga sugan tahay gobolka Al-Fashaqa. Itoobiya iyo Suudaan ayaa dhowr jeer horay uga wada hadlay arrimaha gobolkan Suudaan leedahay ee beeraleyda Amxaaradu xooga ku deganayd muddada dheer, waxaana horay loogu heshiiyey in Amxaarada laga raro gobolkaasi, taasi oo aan ilaa iyo haatan dhaqan gelin kadib markii gudaha Itoobiya ay isku mashquushay. Haddaba ciidanka dalka Suudaan ayaa tallaabo milatari oo iskooda ku qaaday gobolkaasi lagu muransan yahay, waxayna cagta mariyeen maleeshiyaadkii Amxaarada ahaa ee deegaanadaasi ku sugnaa. Warkani oo si weyn ay u tabinayso warbaahinta dalka Suudaan iyo sidoo kaleba warbaahin madax bannaan ayaa isa soo tarayay saacadihii ugu dambeeyay. Tallaabada milatariga Suudaan qaadeen ayaa u muuqata mid ay uga faa'iideysanayaan xaaladda cakiran ee dalka Itoobiya haatan ka taagan, dalkaasi oo dagaalo sokeeye lugaha kula jira isla markaasina ay colaado ka furan yihiin gobolka waqooyiga ee Tigreega. Ma jirin wax iska caabin naf leh oo ay kala kulmeen dhanka Itoobiya iyo maleeshiyaadkii xabashida ee deegaanadaasi ku sugnaa, waxayna inta badan deegaanadaasi si nabada kula wareegay ciidamada Suudaan. Dhanka kalena ciidankii Itoobiya ee ay soo daayeen dhowaan kooxda TPLF, kuwaasi oo la afduubtay kadib markii uu bilowday dagaalkii ka socday gobolka Tigreega, ayaa ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen iyo waxa ay soo mareen. Tan iyo markii uu dagaalku ku bilowday deegaanka Tigreega ee dalka Itoobiya, waxaa adkayd in la helo xogaha rasmiga ah ee ku saabsan waxaa ka socda gudaha Tigreega, maadaama ay telefoonada iyo internetkuba go'an yihiin. Toddobaadyo ka hor, gudoomiyaha TPLF Dr. Debretsion Gebremichael waxa uu sheegay inay qabsadeen in ka badan 10,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee dalka Itoobiya. Dhinaca kalena, dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa sheegtay 7,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada xoogga ee TPLF qafaasheen in ay soo badbaadiyeen, halka markii ay ciidamada dowladda dhexe magaalada Maqale qabsadeen kadib, xoogaga TPLF ay sheegeen ciidamada federaalk ee ay qabsadeen inay iskood u sii daayeen. Balse weli ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashooyinka labada dhinac. Boqolaal askari oo ka mid ah ciidamada ay qafaasheen xoogaga TPLF waxay maalmo ka hor soo gaadheen deegaanka lagu magacaabo Wakihimra iyo Semengonder oo ka tirsan deegaanka Amxaarada. Haddaba ciidamada dhowrka toddobaad gacanta booliiska gaarka ah ee Tigreega ku jiray ayaa BBC-da uga waramay wixii dhacay iyo xaaladaha ay ku sugnaayeen. Alifle Abraham Baya ayaa sheegay in 22 maalmood uu gacanta TPLF ku jiray, balse uusan sheegi karin ciidamadii dableyda ahaa ee isaga ka hooseeyay xaaladda ay ku sugnaayeen. Xilli ay saacadu maraysay 12 saq dhexe ayaan maqlay buu yidhi xabadii ugu horeysay markaan hurdadii ka soo booday ee aan soo toosay, waxaan ka war helay rasaas aan kala joogsi lahayn oo dushannada ka dhacaysa iyo booliiska maleeshiyaadka Tigreega oo nagu hareeraysan. Wuxuu Abraham intaasi ku daray ciidamadii kale ee xerada ku sugnaa xabadii ku bilaabatay 2 habeenimo ilaa iyo 4 subaxnimo ayay socotay. Ciidankii dowladda ee dagaalamayay, maadaama ay rasaastii ka dhammaatay, bakhaarkii hubkana laga qabsaday, wadada u furayd ee keliya waxay ahayd inay isdhiibaan. Rag badan oo saaxiibadeen ah dagaalkaasi markii ay ku dhinteen kadib ayay xoogaga TPLF-na qabsadeen. 10,000 oo askari oo ciidamada federaalka oo ay qabsadeen waxay geeyeen jaamacadda Aksum, kadibna waxay u sii qaadeen magaalada lagu magacaabo Abiy Cadi. Gantaalada marka ay ridayeen markhaati ayaanu ka ahayn, waanan arkaynay
ugu dambeyntiina waxayna sii daayeen maalintii ay ciidamadu magaalada Maqale qabsadeen, ayuu yidhi Alifle Abraham. xaaladda aan ku jiray waxay ahayd mid adag, wadada keliya ee noo furanna waxay ahayd inaanu samayno waxayna yidhaahdaan sameeya. xitaa dhaawicii aan wadanay fursadaan ku dawaysanna waan weynay, ayuu yidhi. alifle kale oo lagu magacaabay Ibraahim Xasan ayaa BBC-da u waramay, waxa uuna isna sheegay in 4 Novembar wixii dhacay marnaba uusan ku fakerin inay ku dhacayaan ciidamo 20 sano u joogay ilaalinta iyo badbaadinta shacabka Tigreega, xilli ay ciidamadu hawl maalmeedkoodii ka soo laabteen oo ay guryahooda u hurda tageen. saacadu markii ay maraysay 5:15 habeenimo ayay bilaabatay rasaastu. markiiba waxaan aragnay ciidamo nagu hareeraysan oo nagu leh gamcaha kor u taaga, qoryihiinana keena. kadib markaan u aragnay ciidanka nagu hareeraysan, xeradiina ay gacantooda ku jirto ciidamadii saaxiibadeen ahaa qaarkooda ay maleeshiyadka TPLF la safteen, ayaanu isdhiibnay waxaana nageeyeen magaalada Abiy Cali. Ibraahim waxa kale oo uu sheegay muddadii ay TPLF gacanta ugu jireen in gaajo iyo haraad badan uu la soo darsay. waxa uuna yidhi hal rooti ah oo qalalan ayaa maalintii oo dhan cunto noo ahaa. ugu dambeyntiina waxayna kala dooransiiyeen in ciidamada TPLF-ta aan ku biiro, in deegaanka Tigreega si nabada ugu noolaano annaga oo shacaba, ama inaan gobolladeennii aan ka nimid aan ku noqonno. waxaana go'aansanay inaan gobolka Tigreega ka soo dhaqaajino, ayuu yidhi Alifle Ibraahim Xasan oo BBC-da u waramayay. saaxiibayaal iyo daawadayaal, waxaanu jecelahay inaynu intaasi kusoo gabagabayno wararkii naga soo gaarayay dalka Itoobiya.